Victor Gyökeres oo mar kale ku fashilmay inuu gool dhaliyo. Arteta oo si lama filaan ah u difaacay. Weeraryahanka reer Sweden ee Victor Gyökeres ayaa mar kale ku guuldareystay inuu shabaqa soo taabto. Kadib markii uu ciyaartii ay Arsenal 1-0 kaga adkaatay Fulham ku dhameystay isagoo aan gool dhalin. Gyökeres ayaa helay 2 fursadood oo waaweyn, balse ma aysan suurtagelin inuu midkood dhameystiro. Inkasta oo uu 2 jeer si halis ah goolka u toogtay. Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa difaacay weeraryahanka cusub, isagoo sheegay inuu weli aaminsan yahay awoodiisa. Wuxuu aad ugu dhawaa maanta inuu shabaqa gaaro 2 ama 3 jeer. Dhammaanteen waxaan ku duceysanaynay inuu gool dhaliyo, ayuu yiri Arteta. Wuxuu sii raaciyay, shaqada adag ee uu qabto kooxda waa mid cajiib ah. Sidaas darteed waxaan isku dayaynaa inaan siino kalsooni iyo taageero. Goolasha waqtigeeda way imaan doonaan. Gyökeres ayaa hadda dhaliyay 3 gool oo kaliya 11 kulan ee ugu horeeyay ee uu saftay Arsenal. Mana uusan shabaqa gaarin muddo ka badan bil. Goolkiisii ugu dambeeyay wuxuu yimid 13 September markaas oo uu ka dhaliyay Nottingham Forest. Inkasta oo uu gool la'aan yahay, haddana taageerayaasha iyo maamulka Arsenal ayaa weli aaminsan in weeraryahanka 27 jirka uu si buuxda u furi doono goolasha marka uu si fiican ula qabsado nidaamka ciyaareed ee Arteta. Fiidnimo wanaagsan saaxiibayaal, warbixintaana waxay qayb ka tahay barnaamijkeeni bandhigga ciyaaraha oo aan caawa ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.